asxaabta caawo bal videogan ha gaaro kun like raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada channelkayga fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe-ka ii saar kambalaalkana furo si aad markaas u noqotid qofkii koowaad oo muuqaalkayga daawado waxaa ilaahay ka baryaa sanadkan inuu ilaahay noogu dhiga mid khayrkiisa wato oo shartiisana ilaahay naga xijaabo waxaan ka hadlo trust wallet waxa waaye sida Binance iyo crypto coins waa ku iibsan kartaa haddii aad soo degsatid application kala yiraahdo trust wallet waxaa rabaa marka inaan tusiyo qaabkaad u isticmaali lahayd sidaad maalka u gashan lahayd waxyaalaha lagaga baahan yahay oo dhan ayaa rabaa marka inaan halkan intaas oo dhan ayaa rabaa inaan iisoo bandhigo marka fadlan videogan dhameyso midda kale trust wallet sembri dadka Africa joogo shirkadan waa maal waa gashan kartaan waana isticmaali kartaan maadaama ay dhahdeen crypto inooma shaqeynayo waxaa kaloo soo degsan kartaan trust wallet maalna waa gashan kartaa coins waa ka iibsan kartaa degsataan trust wallet especially dadka Africa jooga dadka Europe ila joogo ama qurbaha joogo way soo degsan karaan crypto iyo Binance iyo trust marka aniga saddexda application waa haystaa waana isticmaalaya maalna waa gashtay marka ilgooniya waxaa ku fiirinayaa dhalinyarada joogto Africa in aan maanta garab aan siiyo halkan ayaa marka insha Allah idinku soo bandhigi doonaa qaabka lacagta ugu sameey kartid online haddii ay haysatid mobile casri internet fiican iyo lacag yar ku bilaawdid intaas saddexdaas haddii haysatid maal waa gashan kartaa waana bilaabi kartaa lacagtaadana way ku soconaysaa faa'iido weynna waa sameey kartaa marka waxaa tageynaa haddana waxaa tageynaa qaybtii app-ka oo dhinaca laga sage gareynayo maadaama aan iPhone aan isticmaalayo adiga waxaa waaye haddii aad Samsung isticmaalaysid meesha applicationadaada aad kasoo degsatid tag waxaana ku qortaa trust wallet se hadda ugu jeedaan wallet ayaa qaybta kore ku qoraysaa qaybta kore markaa ku qortid waxaa kusoo baxay crypto.com kaas lama rabo trust crypto kan labaad ayaa la rabaa applicationka fadlan sidaan hadii ahaado mid qaldan yaa la soo degsanin dad waxaa jira scam oo dadka lacagooda xadaya ama app application oo bug ayaa jiro marka waxaa sameysaan always ka fiirsada midkaas soo degsanaysaan kan saxda waa kan hadda idin muuqdo oo in tusinayo trust crypto and bitcoin wallet kan ayaa soo degsanaysaa kan markaa soo degsatid anigu ii soo degsan yahay open ayaa ku dhufanaa open markaa ku dhufto halkan ayuu ku keenaa marka applicationka saan waaye qaybta kor waxaa ii saaran waa lacagta waa main wallet saa u jeedaan waa qariyay safety reason qaybta kor waxaa kuu soo fuulaya waa lacagtaada meesha ay ku qoran tahay main wallet hadda lacagteeda uguma jeedaan sababta anaa qariyay halkan waxa waaye qaybta coinska markaas maal gashatid ayaa halkan kuu soo fuulayo saa uwada jeedaan tokens safe moon smart chain elongate BNB iyo moon intaanba waa haystaa maalna waa gashtay waxaa kaloo kuu soo haray kasoo qaad waxaa rabtaa coinka aad gadanaysid waxaa laga yaabaa marka coinka adiga aad rabtid inaa halkan ay ka weysid waxaa sameynaysaa meesha ay ku qoran tahay labada falaar oo qaybta kore ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid halkan ayaa marka waxaa kuu soo baxay coins badan kuwa cagaarka ii saaran waxa waaye waa kuwa ani amaal aan gashtay oo favorite aan ku qorto waaye saarkan oo wada jeedaan waa my favorites waaye maal ayaa gashtay Shiba Pancake Polygon iyo Dash Ethereum waxaan dhan maal ayaan geliyay coinskan aan u jeedaan waa kuwa ani aan wada iibsado waaye marka halkan ay marka waxay ka raadinaysaa coinka amaanintaas aad rabtid inaad gadatid ama aad invest aad rabtid inaad ku samaysid ayaa halkan ka raadinaysaa ayagoo badan ayay hoos ku jiraan haddii xitaa aad weysid waxaad sameyn kartaa qaybta sage-ka ayaa ku qori kartaa magaciisa hadda Shiba kale example hadda ku qoro Shiba waa kaas oo ii soo baxay cagaarun iyo maal waa gashtay Shiba kale waa kor ayuu ii saaran yahay saa u jeedaan marka taas waa mid labaad marka waxa waaye waxaa rabtaa marka coinka rabtaa marka inaad iibsatid coinka markaa iibsanaysid example waxaan idin siinaa coinkan weli ma gadanin kan silo la dhahay silo waa ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid halkan ayuu ku keenaa pagekan buy silo haddaa ku dhufto waxaa waaye
waxaa ku iibsan kartaa moonpay haddaa ku iibsanaysid wax oo la yiraahdo third party ayaa jiro. halkan marka ani kama iibsaday, waxaan ka iibsadaa qaybta Binance waxa waaye waa kan waaye hadda idin soo kicinaa. Binance ayaa lacagta iskugu soo dira, lacagta marka Binance iskugu soo diro oo qaybta oo trustiga ugu diro kadib ayaa markaas trustiga gudihiisa ka sii gataa. marka optionkaas ayaa jira, laakiin haddii aan dhaho intaan ka gadana xoogaa yar percentage ayay saaranayaan. marka percentagekaas sembir waxa waaye kooxdeeda haddaad tihiin save garaysano anaga inoo fiican tahay. 1B haddaad save garay kartid faa'iido weyn ayaa kugu jirto. marka inta haddii aad rabtid waa hawl fudud waaye, halkan waa ka iibsan kartaa, laakiin anaga qaybta kale ayaa ka iibsadaa. marka meesha ay ku qoran tahay receive send lama rabo, meesha ay ku qoran tahay receive ayaa ku dhufanaysaa. receive markaa ku dhufatid kadib ayaa linki kuu soo baxaya. linkigana waxaa samaynaysaa copy ayaa leedahay. copy markaa dhahdid sidaa aad ujeedaan waa copy gareeyey. marka waxaad tagaysaa qaybta Binance. copy markaa linkiga markaa soo copy gareysid kadib ayaa waxaa soo kicinaysaa Binance markaa soo kicisid meesha ku qoran tahay deposit ayaa ku dhufanaysaa. halkan deposit markaa ku dhufatid kadib ayaa leedahay continue. ani hadda deposit markaa imaatid halkan ayuu ku keenaa. halkan markuu ku keeno wuxuu ku sheegay fee-ga laga goosanayo waa 1.8% ay ka goosanayaan qolada Binance. continue ayaa ku dhufanaysaa. continue markaa ku dhufatid halkan ayaa marka waxaa gelinaysaa kaarkaada detailkiisa. haddii ay haysatid kaar bangi Visa ama Mastercard labadaba waa ku isticmaali kartaa. hadda ani kaarkeyga kuma jiro sababtoo waa Binance cusub waaye oo inaan idinku sharaxo leh idinku tusinayo, laakiin kan kaarkeyga markuu ku jiro wuu fudud yahay. continue markaa ku dhufatid linkiga ayaa halkaas markaa gelinaysaa. lacagta aad rabtid qaybtan kore ayaa ku qoraysaa. kasoo qaad waxaa rabaa inaa invest aan sameeyo £100 oo wadankan Ingiriiska. wuxuu iga goosanaa 1.8 ayuu iga goosta. lacag waxaa haystaa £98.20 ayaa halkaas marka transfer ku sameynaysaa qaybta Trust Wallet. marka maal gelinaysaa ayaa marka coinkaas ku iibsanaysaa. I hope inaa wada fahanteen asxaabteeda. videoga waa video very simple step by step. insha Allah next video waxay jecesheen inaan idin soo geliyo videoga labaad ee rabteen inaan ka soo hadlo fadlan commentiga igu reeba. sembir waxaan jeclahay inaan dhageysto dadkayga shacabkayga. commentiga igu soo qora videoga aad rabtaan inaan idin soo duubo next. waa videoga ugu horeey sanadka cusub oo kun ii gaaro. wax weyn ayay ii tahay, waxaan ii noqonaysaa dhiirigelin. like iyo commentiga waa dhankiina. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin asxaabteeda. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.